maantay oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 12aad sanadka 2020 waxaa magaalada Garacad noogu soo gabagaboobay shirkii ugu dambeeyay sanadka oo lagu review gareynayay horumarka uu sameeyay mashruuca dhismaha dekada Garacad. halkan waxaa ila fadhiya engineer Murad oo ah program manager-ka shirkadda TTN ee mashruucan hadda hagaya. waxaa kaloo ila fadhiya engineer Tolga oo isaguna ah kamid ah madaxda shirkadda TTN oo mashruuca gacanta ku haya. aniga oo ah Saciid Faadi oo ah maareeyaha shirkadda wadaagsan ee dhisaysa dekada Garacad. gudoomiyaha ku-xigeenka shirkadda Maxamuud Axmed Qorane oo ah gudoomiyaha shirkadda ku-xigeenka shirkadda wadaagsan. engineer Ismaaciil oo asaguna kamid ah howlwadeennada shirkadda TTN. maanta waxaa noo soo gabagaboobay saan idinku sheegay shirkii ugu dambeeyay sanadka oo lagu review gareynayay ama dib u eegis loogu sameynayay mashruuca dekada Garacad. saa la socotaan hawsha dhismaha dekada Garacad waxay bilaabatay si rasmi ah shaqada ay u bilaabatay sanadkii la soo dhaafay bishii 11aad November. hadda waxaa u dhamaaday oo mashruucu socday muddo 1 sano ah baa u buuxsantay. halkaas sano waxaan fiirinay waxyaalaha la ajiif gareeyay, waxyaalaha dib u dhacay, waxyaalaha qabsoomay iyo waxyaalaha aan qabsoomin, caqabadaha maaragtay laga soo gudbay iyo kuwa naga horeeyay intaba. ilaahay mahad ballaaran ka gaarto. hadda waxaa la sameeyay horumar aad iyo aad u ballaaran oo saa la wada socotaan gudaha buuxinta badda waxaa la gaaray oo hadda maantay oo 7 bisha December ay maraysaa dekadu 645 mitir. macnaheedu waxa weeye dhererka la rabay in la buuxiyo wuxuu ahaa 1,150 almost. marka waxa weeye 60% arintii buuxinta waa dhamaatay. antifeerada ama shubabka waaweyn oo asagana la diyaariyo oo hadhowdii badda lagu gurayo oo la rabay in la sameeyo ilaa iyo 13,000 oo xabo. waxaa hadda la marayaa ku dhawaad 7,000 oo xabo baa la marayaa. lama buuxin oo lama dhamaystirna, laakiin waa dareemi ka dhaa 13,000 7,000 oo xabaa la sameeyay. waxaa ka dhiman 6,000 oo xabaa dhiman. that means asagana almost 60 ama 55%. arintaas ayadana waa lagu guuleystay, waa la sameeyay. mashruuca contract-ga lagula galay qolyahan Turkiga oo dhisaya wuxuu ahaa in muddo 24 bilooda gudahood ay ku soo gabagabeeyaan mashruuca oo dhan. hadda mashruucu waa halfway, waxaan maraynaa kala bar. alxamdulillaahina yani waxa weeye caqabadihii waaweynaa oo bilowgii iyo mobilizationka alaabta in la keeno iyo waxaas oo dhan marka laga soo gudbay, haddana waxaad moodaa in qorshe hawleedkii aan ka horeyno oo waxa weeye 60% iyo 55% wax walba shaqooyinka hadda waaweyn oo company-ga la rabay inuu qabto in maaragtay laga wada gudbay oo la dhaafay. alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. sida maareeyaha shirkadda uu idin sheegay Saciid Abdulqaadir Jaamac Saciid Faadi, anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadda wadaagsan. waxaan noo soo gabagaboobay shirkii bilaha ahaa. sidaba waxa inta hadda shaqada aan soo wadnay waliba inta hadda badda bilownay oo ka bilaabanaysa November 9keedii 2019. bil walba markay dhamaato waxaa la galaa shir baa la galaa. shirkaasi bishii balaankii shirkii bishii dhaweytan la qaatay wixii ka qabsoomay waxaan ka qabsoomin baan isweydiiyaa.
balaanka bisha soo socdana waa la isla qaataa waxa la yiraahdo waxaas baan qabanaynaa wax la isla ogyahay si ay u noqoto shaqada la qabanayo inay noqoto shaqo la isla ogyahay meesha hadda maraysa shirkaas ay hadda roodamaade meesha hadda ay maraysa dekadu ay maraysa dhismaheedana waxa idin sheegay maraya idin sheegay 645 bay maraysaa shaqaduna si fiican bay u socotaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahad iska leh waxa kaleeto aan rabay inaan ku daro hadda waxa weeye waxa laga leexinayaa waxaan sameyn doonaa haddii la yiraahdo beertinka yarka oo hadda idin sheegay maraya idin sheegay oo bilaa u horeeyay sanadka kan insha Allah taala aan rajeynayno inay dhameystirmaan waxa laga leexanayaa oo aan ka leexadku noqon doonaa marka hadda aan gaarno 660 mitir oo hadda inaga xigto 15 mitir waxaan rajaynayaa maalmahan kan hadda aan inta usbuucan uu sanaga dhamaanin inaan meesha sayada aan gaarno oo la leexiyo haddii la yiraahdo marka la leexiyo meesha sayada ahna waxa la sameyn doonaa loo soo laaban doonaa haddii la yiraahdo si dugsi loo helo darbigii iyo hawlgalkiisa iyo dhismihiisa insha Allah taala shaqaduna si fiican bay u socotaa ilaahay baa mahad iska leh meel fiican baan maraynaa hadda waxaan rajaynayaa waxa weeye dadku laba arrimood waxa weeye mid arrinta ugu weyn ugu muhiimsan oo runtii dadka aan ku qabnay waxay ahayd inay ummaddu ilaahay u bariyo subhanahu wa ta'ala mashruucan inuu ilaahay hirgeliyo ummaddu waxaan ka codsanaynaa waxa weeye inuu ilaahay u bariyo subhanahu wa ta'ala mid kalena waxa weeye kamari mashruuca kan waa mashruuc maalgashi oo dadku ay wax ku darsanayeen oo nin walba lacagtiisa uu ku maalgashanayay sida aan bariiska iyo aan uga soo dhoofsanay sokorta banaanka uga soo dhoofsano ayuu kana wuxuu ahaa mashruuc la maalgashanayo dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay ku soo dhawaada ka qayb qaata wax ku darsada wadankanaga oo dhisanaay way nooga fiican tahay inaan wadamo kala dhisnaa in badan oo Soomaaliya waxay wax ka dhisteen ama ku sameysteen ama hanti ku yeesheen wadamada dibadda dhib ma laha ku yeeshaan oo maal gashadaan laakiin dalkiina hooyo waxaad ku darsan lahaydeen wuu idinka sugayaa wadamadaas la dhalaaliyay oo la qurxiyay oo la hagaajiyay rag idinka idin la mid ah iyo gabdho idinka idin la mid ah iyo hagaajiyay oo qurxiyay kiinina wuu idinka sugayaa insha Allah taala ilaahay waxa ka rajaynaynaa subhanahu wa taala inuu mashruuca noo hirgeliyo qulubtana soo jeediyo mashruucan iyo mashaariic badan oo ka dambeeyo oo wadankaniga u baahan yahay meelo badan oo kala duwan laga sameeyayna inuu ilaahay noo hirgeliyaan ee ka rajaynaya insha Allah taala inta wixii ka dambeeyo waxaan rajaynayaa inuu waxa weeye injineerada ay noo sharxaan iyaga lafkooda waxa weeye ay kalimadooda ka yiraahdaan really aware that this project is highly important for the people of Somalia in terms of its very strategic location that will definitely help the region develop rapidly. Therefore, we are determined and willing to complete the project by taking all necessary precautions and actions, such as we have improved and have been improving our manpower resources, machinery resources. In the last October of 2020, after the adverse weather conditions were gone, we again started the rockfill activity in October. So within 2 months, we have made great achievements and more than 200 meters we have made progress. As of today, we have reached at kilometer 0+645, and we are scheduled to complete the construction of small berth by the early months of 2021. Inshallah, we will complete it and stick to our commitment.